Asalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada channelka Brian waxaynu ku dhex jirnay koorsadeena IoT shalay waxaynu soo sharaxnay casirkii saddexaad oo ahay null iyo push button oo isla shaqaynayaan maanta waxaynu isla arki doonaa sida ciwaanka ka soo aragtay Bezier iyo null oo isla shaqaynayaan marka Bezierka macnaha mar kasta oo yacni cod uu sameeyo oo sound uu sameeyo nullkana inuu ka daba shidmo macnaha aynu wada galno koorsada insha allah marka koowaad waxaad ka furtaa tinkercadkaada waxaa u baahannahay new board haddana new board ay furan aadna sidoo kale u samaysan doontaa new board waxaa u baahan tahay arduino u baahan tahay waxaa kaloo u baahan tahay maxaa yidhahdaa breadboard u baahan tahay so waxaa u baahanahay maanta waxaan ku shaqaynaynaa null iyo bezier oo isla wada shaqaynayaan oo cod isla wada samaynayan so bezierka wuxuu ka kooban yahay qayb minus iyo qayb positive ah marka qaybta minuska waxaa looga xiraa resistorka halka qaybtan positiveka lagu xiro breadboardka qaybtiisa negative so breadboardka inaan dab siinaa rabnaa waxaan sameynaynaa qaybtan oo 5 voltageka inaan soo qaadno qaybtan oo GND-gana waxaan ku xiri doonaa qayb negative qaybta negative hadda breadkeena dab waa haystaa waxaa isticmaalaynaa qaybta hoose kan qaybtiisan qaybta negative ku xir waxaa kaloo u baahan tahay resistor kale u baahan tahay oo nalka aad ku xiraysid lugtiisan gaaban so resistorka waxaa ku samaysaa rotation ku samey okay rotation markaa ku samaysid resistorka godadkan intaana god oo ku aadan waxaa kaga rakibtaa maxaa la yidhahdaa arduinaha kaga rakib let's say kan shanaad noogu rakib kan resistorkaasi laftirkiisa rotation ku samey waxaa ku aadisaa godka mujeedaa minuskan godadkay ku aadantahay mid kamida midka arti ku aadi dan kan qaad fiiladiisa qaad waxaa kusoo xirtaa arduinaha kusoo xir arduinaha kusoo xir marka intaas samaysa hadda uu ku xiran yahay waxaa samaysaa qaybta koodka aad meeshaan text ka dooro continue deh so control A control B koodka ma qori karno waqti aan ugu soconayo mog so koodka si simple ah yani intaa ku sharxaynaa koodkaas oo simple ah marka hore horta waxaa u baahan tahay redledka positionkiisa uu ku xiran yahay aa sheegay position hadda wuxuu ku xiran yahay 5 uu ku xiran yahay positionkiisa waxaa waaye 5 aa leedahay bazierkana wuxuu ku xiran yahay positionka 4 uu ku xiran yahay positionka oo afraada oo bedelay declarationkana sameynay then void setup intaan waxaa dhahdaa shift tab okay bazierka output waaye coduu soo saaraa then loopkana la sameyn doonaa yani digital right redledka shit haddana bazierka shit second kabacdi ama 5 second kabacdi redledka demi bazierkana demi second kabacdi 5 second kabacdi mudama kan coduu sameynaa ma maqli kartid laakiin coduu hadda sameynayaa marka intaasuu ku saabsan yahay koodka haddii aa wax ka fahantay fadlan channelka noo subscribe gareey waa ku mahadsantaa daawashada